inaad muuqaaladeena si bilaash ah ku daawatid waa mid aan ugu talagalnay oo waqti badan gelinay. laakiin inaad hal subscribe nagu caawiso waa mid qaadanaysa wax ka yar hal second. assalaamu calaykum. waan in salaamay akhyaarta meel kasta oo caalamka joogtaan. waxaan halkan ku soo gudbinayaa qaybtii labaad mowduuceennii taxanaha ahaa ee ha fikirka tolman. ku soo dhawaada mowduucana maanta. aan ku xasuusiye waxaan bilowgii taxanahan kuu sheegay inaan kula wadaagi doono ilaa 8 tilaabo oo muhiim ah. tilaabadii koowaadna waxaan kugula wadaagay muuqaalkii kan ka horreeyay. tilaabada labaadna waxa ay noqonaysaa caado ka dhigo in aad wax walba markaas la jooga samaysid. waxaa jira oraah oranaysa dadka intooda badani waxay qabriga galaan iyagoo wixii ay qaban lahaayeen oo dhan maskaxda ugu jirto. dib dhigashadu waxay kugu hogaaminaysaa qaafikir xumo. qaafikir xumaduna waxay kugu hogaaminaysaa dib u dhigasho oo waa isquudiyaan. ogow, dib u dhigashadu waxay kugu samaysaa daal ka badan intii ay kugu samayn lahayd qabsashada hawshaas. haddii aad doonaysid inaad yeelatid joogtaysidna hab fikir wanaagsan yeelo dabeecadda ah inaad noolaato xilliga aad joogtid. waxa aad qabanaysidna aad xilligaas la jooga qabatid. marmarsiyaha koowaad ee dib u dhigashada waa ereygan dilaaga ah ee la yidhaahdo ka fiirsasho. saaxiibkayow, inaan arrintan sameeyo waan ka fiirsanaya. bil kadib, 6 bil kadib, weli wuu ka fiirsanaya. marmarsiyaha labaad ee dib u dhigashada waa diyaargaroobid. saaxiib, hawshaan waan u diyaargaroobayaa. bil kadib, 6 bil kadib, ilaa sanad kadib, weli waa u diyaargaroobayaa. weligoodna ma diyaargaroobaan ama diyaar ma noqdaan. waxaa jira qaar ku odhanaya waxa aan samayn doonaa arrintan marka aan khibrad u helo. miyaysan ogeyn in khibraddu timaado samaynta shaygaas kadib? dabaasha laguma barta buug laga akhriyo ee waa inaad biyaha dhex gasha. noloshu la mid maahan ciyaartoyda kubadda cagta oo la bedeli karo ciyaartoyda. waxaase la yaabka nolosha ah, imtixaan ayaa lagaa qaadayaa adiga oo weli cashar lagu siin. khibrad ayaana ugu yeernaa gafafkana soo mara. noloshu waa sida waddo hal dhinac aada, mana lahan bar la taabto oo dib kuu celin kara. aan kula wadaago erayada adduunka ugu murugada badan. waa sida adiga oo leh sidaas waan awoodi karay, sidaas ayay ahaan kartay, haddii aan in yar oo kale isku dayi lahaa waxaas waan yeeli lahaa, haddii aan in yar oo kale isku dayi lahaa, alla haddii aan haysto waxaas iyo waxaas. halka shay oo aan hubo waa in guulaystayaasha oo dhammi jeclaan lahaayeen in ay wax dib dhigtaan, laakiin weligood aysan sidaas samaynin. haddaba su-aasha malaayiinka doolar ku kacaysa waxay tahay, maxaa dadka ku kallifa inay wax dib dhigtaan ama ay dib dhigasho sameeyaan? sababta ugu weyni waa ha fikirka qofka fakadka ah. dadka intooda badan kuma dhiiran karaan howl adag, waxa ayna door bidaan dib u dhigasho. dib u dhigashada ayay doonayaan in ay gabaad ka dhigtaan. jooji dib u dhigashada. miyaysan ahayn xilligii aan meel iska dhigi lahayn in aan howl dib dhiganno? su-aasha maanta, sidee noloshaada u saamaysay dib u dhigashadu? nala wadaag waxyaabo kale oo nagu dhiirigelinaya inaan ka fogaano dib u dhigashada. ku mahadsanid daawashada muuqaalka. inaad muuqaaladeena si bilaash ah ku daawatid waa mid aan ugu talagalnay oo waqti badan gelinay. laakiin inaad hal subscribe nagu caawiso waa mid qaadanaysa wax ka yar hal second.